Sheeko jacayl oo aad u xiiso badan. Nin faqiir ah ayaa wuxuu guursaday gabar uu aad u jeclaa, iyaduna jecleed. Maalin maalmaha ka mid ah, iyagoo wada faraxsan sheekaysanaya, ayay gabadhii waxay ugu tiri xabiibi, gabar aad u qurux badan oo tin dheer ay ahayd. Waxay tiri xabiibi, tinta inaan hagaagsadaan rabaa, ii soo iibi shanle. Ninkii ayaa cabaar fakeray, fakar badan ka bacdi ninkii wuxuu dhahay abaayo, aniga adduunyada dhan waxaan ka haystay saacad kana go-aan suunka, marka waxaan ku habaystay xitaa waan la ahay. Gabadhii oo gabar wanaagsan ah kumaysan adkayn, codsi kalena kumay soo celin, sheekadeedii caadiga ayay iska wateen. Mar ayuu suuqa aaday si uu shaqo u raadiyo. Isagoo wax raadinayo wuxuu meel ku arkay shanle aad u qurux badan. Wuxuu is yiri xaajiyadaadii shanladan u iibi. Saacaddii ayuu yiri nimanka iga iibiya. Lacag yar oo aad u badnayn ayay ka siiyeen. Shanladii ayuuna sidii ugu soo iibiyey gabadhii. Kabacdi waxaa dhacay, gabadhii guriga markuu soo galay fajac ayuu arkay. Gabadhii oo tintii iska soo xiirtay, kuna soo iibiday suunkii saacadiisii. Jacayl intaas leeg ayay ku tiri macaane, marka aad baxday ayaan baxay. Waxaan aaday sidaan u soo iibiyo tinteyda, si aan kugu soo iibiyo suunka saacadaada xabiibi. Asaguna wuxuu yiri aniguna waxaan aaday suuqa si aan kugu soo iibiyo shanladii. Saacaddii oo suunka go'oneed waan soo iibiyey, waxaan kugu soo iibiyey shanle. Laakiin waxaa sheekadan laga fahmi karaa, lagana fahmi karaa qofka inaad jeceshahay kaligaa muhiim maahan, waa in aad isjeceshihiin, wax walbana isku samri kartiin, iskuna samaysiin. Mahadsanidin.